بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين كلمدي شan iyo tobanaad maanta waxaan u khasisnay cinwaanna uga dhignay almucaamalaat maadaama daacaadkii oo jismiga ku saabsanaa sidii salaadii sidii dikrigii sidii ducadii aan ka soo hadalnay waxaan rabnaa aan ku darno sifa caam ah mucaamalaadka dhaqanka dadka dhexdiisa markii la dhaqmayo iyo markaan masjidka joogno xaalkeena siduu yahay waxaan saas u leenahay inuu qofkii laba shakhsi noqonin markuu masjidka joogo ou dikriga iyo qur-aanka akhrinayana shakhsi waay markuu xafiiskiisa iyo dukaanka iyo tijaaradiisa ku jirana iyo madaxnimadiisana waa shakhsi kale haddii saas ay noqoto macnaheedu waxay ka dhigan tahay calmaaniye waay calmaaniye midna dowladday ku tacalluqdaa dowladda hadday tiraa diinta ku dhaqmi mayno nin kastaba ilaahay gooni ha u caabudo masaajidkiisa iyo dikrigiisa laakiin xugum markay noqoto dowladda diinta qaadan maysa hadday tirahdo faslu diin can idowla oo calmaaniyad waay dowladda taas ay xil u saaran tahay midna waa calmaaniya shakhsiye ah qofkii waa cibaadaysanaa masaajidkii adkaartii qur-aankii maasha allah laakiin markuu tijaaradii iyo dhaqankii iyo hadalkii iyo beecii iyo shirihii la gaaranay shakhsi kale waayo oo been iyo maxaan ku iraa waxaan jirin buu ku dhaqmaya marka diintii wuxuu ka dhigay masaajidkii lu kula dhaqmaya laakiin beecii iyo shirihii iyo tacaamulkii iyo runtii ma leh waa calmaaniya bay noqonaysaa taas marka in diintii laga fogeeya dhaqanka waa diin la-aan weeyaan maxaa yeelay ilaahi subxaanah wa tacaala wuxuu doonayaa an takuuna lahu cabdan fi kuli alawqaat walasmina waalamkina ilaahay wuxuu doonaya hal adoonoo la yaqaano meel loogu soo aaday inaad noqotid waqti kasta iyo makaan kasta iyo qowlkaada iyo ficilkaada min hal adoon aad noqotid oo wax iskhilaafsan aan la arkin oo markii aad masjidka joogtid sida tahay aad dukaankaada ku noqotid xafiiskaada ku noqotid tijaaradaada aad ku noqotid taasaa la doonayaa liannahu ilaahi subxaanah wa tacaala wuxuu noo sheegay qofka inay habboon tahay wanaagga masaajidka uu ku qabto inay u noqoto dariiq ou isku xakameeyo ilaahi wuxuu iri ina asalaata tanhaa can alfaxshaa'i waalmunkar salaadaas aad dukanaysid haddaad macnaheedii tadaburtid markaad dukaanka aad timaado dadka inaad khiyaantid amba been aad u sheegtid aad doontid inay salaadaada kaa reebto tira war maxaad ka dukanaysa haddaad inta been ka sheegaysa ilaahigeed u tukanaysa intana wuu kuugu arkayaa salaaddii marka waxay kaa reebaysaa xumaantii inay saas noqotaa la doonayaa laakiin tasawaru haddii salaadii la dukanayo oo masaajidkii wanaag lagugu yaqiinay aad u adeegsatid inaad shartaadii aad ku dabooshid dadkii masaajidka ay kugu yaqaaniin wanaag iyo khayr marka way kugu kalsoonaanay markii dukaankii ay kugu yimaadaan war ninkaan nin ahlu salaad isna naqiinay waay dadkii marka waxa weeyaan salaaxii lagu yaqiinay iyo u adeegsanaya dinihiisa gaarka ah inuu ku fusho yacni aad bay u falxun tahay inay salaadii ku qabato meeshii laga rabayaad waxaad ka dhigatay mid lagu adeegto oo dana baatil lagu gaaro waxaad ogtihiin ilaahay inuu canaantay qeyb mu'miniinta ka mid ah sababta u canaantana wax bay yidhaahdeen waxaasaan qabanayna afkay ka yidhaahdeen ficilkiina way samayn waayeen ma aha inuu ficilkoodii khilaafay keli ma aha laakiin waxay yidhaahdeen waxaasaan doonaynaa inaan qabanno iyay qaban waayeen ilaahay wuxuu uri yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allaahi an taquuluu maa laa tafcaluun yacni ayagoo iimaan leh yaa ayuha aladiina aamanuu waa loogaga bilaabay lima taquuluuna maa laa tafcaluun maxaad aad u dhehaysaan waxaadan samaynaynin waxaa ilaahay agtiisa ku weyn baa ilaahay yiri inaad tirahdaan waxaadan qabanayn marka laba qeyb waa noqon kartaa oo haddii hadalka ay yidhaahdeen ficilkooda u khilaafa aad bay u qaabdaran tahay haddii dadka waxaad u sheegtoo tira waxaan idiin sheegaa waxaasan qaban doono masaajidkaasaan dhisi doono aytaamta aan quudi doono saan aan samayn doono wixiina kama aadan soo bixin way soo gelaysaa ida naftigeed marka ninkii haddii ilaahay mu'miniinta u qabsaday hadalka ay yidhaahdeen inay ka run sheegi waayaan ficilkii ay ku tadbiiqi waayaan famaa baaluka ninkii hadalka uu sheegay ficilkiisa u khilaafay waa arrin aada u qabdaran waay
ayib marka qofkii hadduu mucaamaladiisii uu khiyaano uu been ka sheego, hadduu mucaamaladiisa been ka sheega khaa'in baa lagu magacaabaya. hadduu iimaankiisa been ka sheegana munaafiqa la yidhahda. ninkii wuxuu sheegana iimaanka cagsigiisa qalbiga gishto oo kufrigii iyo gishto, ninkaa munaafiqa la yidhahda. daahirkuu islaam ka yahay, hoosna gaal buu ka yahay, munaafiq waay. ninka maxaan ku idhaahdaa mucaamaladiisii dadkii waxaan jirin u sheego, xaqiiqada ka duwan, ninkaasna tacaamulkii khaa'in buu ku yahay. khiyaanada marka waxay gashaa tacaamulaadka, nifaaqana diintay gashaa. ayib marka waxaanu ognahay ilaahay subxaanahu wa tacaala qisasta ambiyada wuu noo soo akhriyey, qur-aanka uu noogu sheegay. wuxuu noogu sheegay inaan wakhtiga yar aan isku dhaafino iyo inay noo noqoto maxaan ku idhaahdaa tafakuh, bal umamtii hore say ku noolaan lahaayeen. mase ilaahay wuxuu noogu sheegay inaan ka cibro qaadano, wixii xumaan ay sameeyeen aan ka fogaano, sidii ciqaabka ku dhacay uusan noogu dhicin. nebiyullaahi shucayb qowmkiisa waxay caado u lahaayeen inay mucaamalaadka ama dhaqanka dadka ay la dhaqmayeen, beeca iyo shiraha inay ku xumaayeen. marka nebi kasta qowmkiisa wax baa lagu yaqiinay. nebiyullaahi shucayb qowmkiisa waxaa lagu yaqiinay inay macnaha ay dadka waxooda ka nusqaamiyaan. walidaalika meel kastoo qisadiisu kusoo marto qur-aanka waxaad ku arkay wayaa qowmi awfu lmikyaala walmiisaana bilqist walaa tabkhasu nnaasa ashyaa'ahum walaa tacthaw fi lardi mufsidiin. saasuu nebigooda ku wacdi jiray, wardadii habow keylka ama waxa wax lagu beega dhammaystira, miisaanka dadka u dhammaystira si cadaalad ah, dadka waxooda ha ka nusqaaminina, dhulkana ha fasaadinina. haddaad fasaadisaan ciqaab baa idinku dhacay. sidiisaa loogu wacdinayay, taladii way qaadan waayeen. ilaahay markaa wuxuu yidhi fa akhadathum arajfatu fa asbaxuu fii diyaarihim jaahimiin. dhulkii baa lagu girgiriyey, lagu dhaqdhaqaajiyey, waa lagu dabagediyey, waa u dhammaatay. marka halkaas oo dembiyey macruufka ku ahaa, dabcan iimaan la-aantan ummantay kala sinaayeen, yaa ilaahay u soo dedejiyey ciqaabtooda inay ku dhacdo. annaga waxaan ku tusi doonaa inan dadka waxay sameeyeen oo macaasi badigeed in nagala wada dhexelay. marka khatar waxaan u saarannahay lowlaa dadkaas saalixiinta oo ilaahay ka istikfaarsana aysan ahayn in wixii umamtaas ku dhacay ay nagu dhacaan. marka qoomkaas waxay ahaan jireen nebiyullaahi shucayb markuu ku wacdiyo waxay dhihi jireen yaa shucaybu asalaatuka ta'muruka an natruka maa yacbudu aabaa'una aw an nafcala fii amwaalina maa nashaa inaka la anta alxaliimu rashiid. waxay dhihi jireen waxyaalahay ku eedayna ma waxaad gaartay nebi shucaybow inaad maalkeennana la soo fara gashato oosaan u gadayna iyo saan u nusqaaminayna iyo sidaan u beecinayna yaad leedahay saan ha lagu hago diintayna ha lagu hago maadna leedahay. wax kale in soo dhaaftay ilaahay cibaadadiisa waaba kuga ogeynba oon kaa diidnay, haddana maalkeenni maad nala soo gashay. waa calmaaniyiin soo ma arkaysid. waxay ku leeyihiin war diinta iyo dhaqanka isku xirin. waxa weeyaan beeca waa shataara iyo raganimo yuu ku xiran yahay, laakiin hadhihin qawaacid ha loo sameeya, hadhihin saasay leeyihin. waxaanu ognahay taariikhda dib haddaan u akhrino, umamtan maanta islaamka shucuubta ku nool badigeed waxay islaamka ku soo galeen dadkii naga horeeya muslimiinta ahay wanaagga ay ula dhaqmeen. waxaan xasuusanaa ugu dambeyntii qoladan yemaniyiinta xadaarima la yidhaahdo, yemaniyo dhan ma ah, kuwa shamaaliyiinta ma ah, walaa xataa cadaniyiin ma ah. qoladan xadaarima la yidhaahdo waa qolada oo mukalla iyo say-oon iyo meelahaas degan. waa meeshii hore oo nebi caadi ay deganaa jireen, qowmu caad aan dhahay oo nebi huud loo soo diray. dadkaas fadli weyn bay ku leeyihin ummadda islaamka ah. ayagaa ilaa indonesia, ilaa malaysia, ilaa sankaafora intay tageen, dadki waxay u tageen beec mushtari bay u tageen, beec inay kasoo gataan. dadkaas waxay arkeen dadki dad ka duwan oo beecina ka run sheegaya, shirihina ka run sheegayo. waxa ficilkoodii wixii loogu yimaado, wixii lagu ammaansado, wixii looga tago sidoodii. umamtii gaalada ahayd wakhtigaas islaamka oo dhan bay wada qaadatay.
waxay ka yaabeen nimankan afcaashooda saan u qurxan tahay diintooda waa wanaagsan tahay bay ku soo galeen. Indonesia waa dadka dowladaha shucuubta muslimka uga badan waay. inta uu soo kac sharqi afriqiya oo dhan saaxil afriqiya ka soo gal Soomaaliya ilaa Kenya saaxilkeeda ilaa aad South Africa ka tagtid waxa diinta ku faafiyay waa nimankaas weeyaan. diin iyo dacwana uma bixin khuruuj fi sabiilillahi wax la yiraahdo uma ayna bixin, laakiin dukaankooda ay markii fariisteen yaa run iyo amaana laga helay. dadkii oo dhan baa dadka diinta ka qaateen. marka haddii dhaqankii oo wanaagsanaado sabab ay u noqotay diinta in lagu soo galo ma diidaysaa. haddii dhaqankeena oo xumaado suluugtii iyo annaga aan ku dhaqmayna hadday xumaato inay sabab u noqoto karto ummad dhan oo diinta soo geli lahayd inay tagto oy diido u fiirso. walidaalika dad culamo ka mid ah waxay rabbanaa laa tajcalnaa fitnata liladiina kafaruu waqfir lanaa rabbanaa. aayaddaas macnaheedu waa la yaqaanaa. waxaa dhici karta in ay soo dhex garta baa layidhi inaan annaga islaamkii suuradiisa xumayno oon sabab u noqono ummadtii kor naga fiirsanaysay inay annaga markayna nacaan islaamkan wadanayn ay nacaan ayagana. liannahu haddaan annaga wanaagsanaan lahayn oo dhaqan iyo edab iyo akhlaaq aan lahaan lahayn kunaa nadcuu ila alislaami biafcaalina qabla aqwaalina. tii haddii la waayo waxay soo dedejin lahayd inay dadka naga diidaan. maanta waxa jira saas waay. muslimiinta hamajiyiin dad isdagaalamayo oo khayaano badan oo gaajo badan oo aan cadaalad iyo xaq iyo midna aanu aabayeelayn hadday noqdeen umamtii kale waxay yidhahdeen kuwa hadday diin fiican haysan lahaayeen ayagaa isku hagaaji lahay. marka diinteenoo wanaagsan afcaasheennii baan ku xumayna anagii. marka ilaahay subxaanahu watacaala ciqaabkiisa wuu adkaan doonaa. ciqaabka salaada ninkii ka taga zakada bixi waay keligeed ma ah. ninkii mucaamalada dadka ku khiyaano waxa weeyaan ilaahay ciqaab adag buu u diyaariyey. tahdiidka ama goodinta aan wax kaaga akhrina ilahi wuxuu iri waylun lilmutafifiin aladiina ida ktaaluu cala annaasi yastawfuun waida kaaluuhum aw wasanuuhum yukhsiruun alaa yadunu ulaa'ika anahum mabcuuhuuna liyowmin cadiim yowma yaquumu nnaasu lirabi alcaalamiin. aayaddaa si fiican u dhegeyso. ilaahay wuxuu iri halaag waxaa iska leh dadka wuxooda markay gadanayaan ka nusqaaminaya. macnaha markii wax loo beegayo way ka nusqaaminayaan, markay wax u miisaaminayaan waa ka nusqaaminayaan. laakiin ayaga markay soo beeganayaan ama ay soo miisaamanayaan oo ayaga wax gadanayaanne way dhammaystiranayaan. markaasaa ilaahay wuxuu iri alaa yadunu ulaa'ika anahum mabcuuhuuna. dadkaas miyaysan yaqiinsanayn in la soo bixi doono liyowmin cadiim maalin weyn ilaahay in ay soo hor istaagi doonaan oo la soo bixi doono yowma yaquumu nnaasu lirabi alcaalamiin. ilaahay hortiis maalin in la soo hor istaagi doono oo ninka camalkiisa lagu qaba doono miyaysan ka warqabin baa la yiri. hadday ka warqabi lahaayeen waxaa sidaas ma u samayn lahayn. marka dib isku akhri. hadhow haddaad ku calaacali lahayd arsaan haddaan ogahay mucaamaladeydii ama dhaqankayga xumaantiisa waan iska saxil haddaad dhihi lahayd haddaan kuu sii sheegaynaa baa lagu leeyahy ilaahay oo aayaadka iskugu soo dejiyey. marka waxaa layidhi damiin farweyna wax loogu qoraaye mucaamalaadka annagana dhex taalaan idin sheegaya. kasoo bilow siyaasadeenni. maanta waxaan ognahay wax siyaasada lagu magacaabo qabiilaa horta lagu dhisay. waxaa soo sharxanaya qabiil. qofkii laguma sharxanayo ahliyad iyo wanaag iyo salaax iyo toosnaan lagu yaqaano maaha. qabiila lagu soo sharxanayo waa kow awal khadwa oo khalad ah waay. midda labaad ninkaas markuu qabiilka soo sharxanayo wuxuu lacag haystoo dhan yaa laga qaadanaya. intaanu weliimu dhiga, intaanu dhaqaalu bixina, ninkaanu kala laaluusha wixiisa intuu bixiyo intuu dayn soo qaato masigooba haddee baaba-ay ama barlamaankii ama dowladdii uu soo galaya. ninka sidaas wax u bixiyey oo intaasoo lacag ku bixiyey waxaad moodaysaa inuu ummad wanaageeda iyo cadaaladeeda wax u qabana ma kula tahay? waa su-aal aniga su-aal adiga ku weydiinayo. hadhihin waxaan jirin uu sheegay waxa waaqicaan kuu sheegay saas ma tahay mase ma ah? aljawaab nacam. ninka saas ku yimiday saddex shay buu ka rabaa. lacagtii kaga baxday inuu soo ceshto. maxaan ku iraahdaa
wuxuu ku noolaadana inuu ka abuurto socodka damba markii doorasho la gaarana wuxuu ku soo bixi lahaa inuu ka diyaarsado intaasaa hadafkiisa ay tahay. hadaf afaraad hadduu jiro adaankaa suga inay iigu dirti. natiijada saas weeyaan. kasoo tag markaan u nimaado tijaaradii bidaacadii waxa weye waxa la soo gado waxna waa asli waxna waa taqliidi. ninkii markuu shaygii taqliidiga ay soo gado oon asalka ahayn ou dadku ku yiraahdo asal waa anaa kuu og kow haddana sicir uu ku soo gatay sicir aan ahayn 20 ay ugu fadhisaa wuxuu ku leeyahay 40 aan ku soo gatay waa labo. markaas haddana dadkii wuxuu ku sirayaa nin masaajidka lagu yaqiino ahlu salaad been sheegi ma bay le 3 mukhaalafo waay waxa asli aanaynu yiri asli waay sicirkooda aan waa sheegtay dadkii wanaagii lagu yaqiino waa ku dhakray imisa kabaa'ir dhunuub uu galaya adankaas ugu jawaabteed. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri 3 laa yukallimuhum allah walaa yanduru ilayhim walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim. يعني dembgaas intuu la egyahay arqiyaamo ilaahay la hadli mana fiirinaya cadaabna waa siinaya. waxaa kamid almunfiqu silcatahu bilxaliif اlkadib ninka badeecadiisa bixiyo been ku bixinay wallaahi intaasaan ku soo gatay wallaahi asli waay wallaahi kayta waay uu ku bixinaya dadkiina dhaartay ka qaadanaya waana been. ninkaas waxaa weeyaan dadkaan lala hadli inuu ku jira. ayib haddii ninkii uu tago hadda maanta waxaa waa shiinaa la tagaa meel kasta wadankii warshad baa la tagaa warshadii waxaa laleeyahay niyow daawo ii sameey daawadii markii la sameey waxaa leeyahay daawo kuwaaltigeeda yar yahay hadday 100% aheed 20 le ka dhig 8 kale cirka u dir kow markuu keeno nin dhakhtar abuu le waa isla waafaqa wuxuu leeyahay niyow daawadana keena bix. ninkii dhakhtarka ahaa daawadan soo u bixiyo nin kasta oo jiran buu u qora ama ha u baahnaado kimiyada ama ha ka badnaato ama ha ka yaraato. imise qofkii noloshiisii baa lagu qamaaraya daawo aan jirin ama kuwaaltigeeda yaryahay markaad siisid oo ninkii cudurka iskugu daaway u qaato oo cudurka uu daaway wayso oo u dhinta ka war yani nin qaatila sowma tihid waa jawaab. haddii aad badeeca soo gadatid taariikhdeedana ou dhammaato taariikhda u bedeshid dadkiina aad ka gadid calaa annaha inay tahay badeeca jadiid ah bal iska dhaafay inaad kula tartantid dadkii badeecada fiicnahay suuqa aad kaga bixisid. waxaa weeyaan qof baa waxaa jira suuqa sow ula haro wax oo aan jirin buu soo gadaya oo waxa suuqa laga isticmaalo asliga u eg yuu keenaya markaasuu waxaa weeyaan sicirkana hoose u dhigaya dadkiina waa asal buu leeyahay. ninkii kaloo wanaagahay oo dhan inuu suuqa ka baxa liannahu sicirka ninkan uu ku gadaa kuma gadi karo inuu suuqa ka baxa iyo in ninkan xumaanta uu sameynaya inuu la sameeyo asigana wixii oo faalsada uu la keeno labadaas unbay mid noqonaysaa. marka ummadii oo dhan sidaas bay ku wada baabay wax la wada ogyahay waay. marka waxa weeyaan hadalka inuu ugu sii dheeraado ma rabe qof waxa weeyaan nin kastaba wuxuu sameynaa waa ogyahay xaqiiqatan nin been isu sheegaa ma jirto. nin kasta waxa uu ogyahay inay sax yihiin khalad yihiin waa kala ogyahay. marka ama adigu u bareer ama iska celi naftaada ka noqo ummadaas amaana bay kugu tahay. dowladdu waxaa la rabay inay waajibkeeda qaadato waxa suuqa soo galay iyo waxa ka baxay inay kontroosho. maanta waxaas inayna jirin baan u ognahay. nin kastaba jaantaar rogan baa la yidhaahdaa waxaad rabta keen waxaad rabtana sameey yay socotaa. laakiin haddaad adduunyada ciqaabkeeda ka baxsatid midaadan ka baxsan jirinaa joog. waqul icmaluu fasayara allahu camalakum warasuuluhu waalmu'minuun وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إلهي وحوني نبي محمد وحاد كنت رادا دديا وحاد ربطان اسك سماء إلهي نبو إذين أركيا رسول كيس نبو إذين أغياه بإعلام الله إلهي بأغيسيني مركون نولايوا والمؤمنون نوي مرخاتبي كيهين انتا صعدا وحاكسي وين ثم تردون إلى عالم الغيب الله أك وحا أديك كامغان إيه وحا أكتهي بكل أك
markii lagu celiyo fayunabi'ukum ilaahay wuxuu idin sheegi doonaa bimaa kuntum tacmaluun waxaad adduunyada markaad joogta aad samayn jirta hadday wanaag ahayd iyo hadday khayaano ahayd maalinkaas waa lasoo bixinaa kitaabkaada iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiban wixii aad samayn jirtay oo xumaan iyo wanaag ah yaa hortaada lasoo dhigaya marka waana lagugu qaadaa maxkamadiisa marka haddaad aad isdanaynaysid oo adiga naftaada aad danaynaysa hadaadan bulshada danaynaynin ogow maalintaas inay ku sugayso marka taasaan hadda kuu sii sheegayaa hadhowti dambe hadhihin ilaahu dib noo celi saan camalkii min jadiid u soo saxa intaad ku calacalin lahayd hadda isa sax wallahu aclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed